السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يالكسو دوادا موقالكينا مانتا waxaan dul istaagi doonaa taariikhda ninkii ugu taajirsanaa ee soo maray taariikhda inta la og yahay. haddii lagu weydiiyo su'aasha ah waa kuma ninka ugu taajirsan ee adduunka soo maray, aad ayay u fududahay. isla markiiba niyadaada waxaa ku soo dhici doona ragga hadda adduunka ugu taajirsan oo ay ka mid yihiin Jeff Bezos iyo weliba Bill Gates. laakiin sidaa ma ahan oo waxaa jira nin muslim ah, afrikaan ah oo haddana madow oo noqday mid ka mid ah ragga taariikhda ugu khanisan ee soo maray adduunka. inta badan waa la iska indhitiray maadaama uu ka soo jeedo dunida labaad ama qaaradda Afrika. si aan muuqaalkeena u bilaabno, haddaad channelkan ku cusub tahay fadlan subscribe saar. mahadsanid. dunidan casriga ah ee hadda la joogo waxa uu taajirsan ninka la yidhaahdo Jeff Bezos, milkiilaha shirkadda Amazon oo haysta adduun lacageed dhan 145 bilyan. kaalinta labaadna waxaa ku jira Bill Gates oo haysta adduun lacageed gaaraya 106.6 bilyan. waa laba nin oo u dhashay waddanka Mareykanka. haddaba ma maqashay ninkii ugu khanisanaa ee taariikhda inta la og yahay? waxa uu ahaa nin madow oo muslim ah, waana Mansa Musa, boqorka boqoradii Maali ee qarnigii 13aad ilaa 14aad. waxa uu haystay adduun lacageed u dhigmaa 400 milyan oo dollar maanta. Mansa Musa boqortooyadii Maali ee uu ka talinayay waxa ay ahayd mid ka mid ah 3 boqortooyo ee dunida waqtiga uu khanisanaa, waxaana caasimadda u ahayd xilliga Timbuktu. waxa ay 5 jeer ka weyn tahay Londonta hadda waqtigan jirta. waxa ay ahayd mid ka mid ah xurumaha cilmiga dunida. waxa ay ahayd goob loo soo doonto cilmi nooc kasta oo adduunka ka jira. waxaa ka furnaa waddanka Maali maktabado iyo jaamacado qaarkood aan loo barbardhigi karin kuwa hadda xitaa adduunka ka jira. boqortooyadii Maali iyo Mansa Musa waxa ay ka turjumayaan ilbaxnimadii hore ee qaaradda Afrika ay lahayd iyo halka dunida ay maanta hadda kaga jirto. inta badan dowladaha Yurub waxa ay baabi'iyeen oo dhammaan ay ciidalisimeen taariikh baaxad weyn oo ay lahaayeen dadka ku nool qaaradda Afrika. waxa ay cagta mariyeen astaan walbo iyo wax walbo lagu soo xasuusan lahaa taariikhii hore ay lahayd Afrika. Mansa Musa waxa uu ahaa ninkii ugu taajirsanaa ee adduunka soo maray inta la og yahay. heer lacagihiisa waxa ay gaareen in la xisaaban waayo. xog aruurin la sameeyey ayaa waxaa lagu soo bandhigay 10 nin ee hadda ugu taajirsan ee dunida korkeeda saaran inay ka badan yihiin 400 ee dhulka hoostooda ku jirta. micnaheedu waxa ay tahay 10 qof ee hadda ugu taajirsan inuu ka badan yahay kana dhaqaale badan yahay Mansa Musa waxa uu ahaa nin muslim ah. waxa uu dhashay sanadka markuu ahaa 1280. waxa uuna ku dhashay waddanka Maali. waxa uuna geeriyooday 1337 boqorka boqorada Mansa Musa. inta ha inoo joogo muuqaalka.